munaasabadan oo shahaadooyin iyo abaalmarin lagu guddoonsiinayay in ka badan 100 arday oo dhameysatay waxbarashada macaahidada lagu barto culumta sharciga islaamka sida quraanka kariimka kitaabada axaadiista iyo guud ahaan cilmiga shareecada islaamka oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho culimo u diin aqoon-yahano ardayda qalin jibinaysa kaasi soo qabanqaabiyay dalada macaahidada sharciga ahliga ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha dalada macaahidada sharciga ahliga ee Soomaaliya Maxamed Muuse Maxamed ayaa ka hadlay muhiimadda ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay barashada diinta islaamka asbaabaha macaahidda keenay inay furmaan waxay ahayd Soomaaliya waa dad diimeed oo la yaqaan diintu iyo meeshay ka soo jeedayna waxay ahayd أولا القرآن كإن لبرته القرآن كمركي لبرته كدي من قفته وحرسته حلقات مساجد مجاله وكله ليهاي أما مجاله يكون له أما هو فوق أنت بينه قدام Sheekh Ali Wajiis oo kamid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay munaasabada ayaa ku booriyay ardayda dhameysatay waxbarashada shareecada islaamka in ay sii kordhiyaan aqoontooda marka waxa waa horto imtidaadkaas taariikhiga ay leeyihiin macaahidda cilmiga wax la ibtikaari hadda ama amar muxdath ma aha waxa way yani ruga cilmi oo dad طلاب العلم inta la arooriyay lagu siiyo jawaayid iyo ijaazaad lagu siiyo oo ay ku soo ku tartamaan fastiqul khayraat oo marka cilmigooda iyo muahalaadkooda lagu kala saaro lagu abaal mariyo kadibna ijaazaad kala siiyo ayaguna ay u fariistaan inay manaakis sameeyaan iyo xarumo waaweyn cilmiga ay sii baahiyaan halkaas ay salka ay ku hayaan halka qodobo kooban wax cusub ma gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda islaamiga Professor Abdulqaadir Cali Muumin ayaa sheegay in jaamacadoodu ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarinta aqoonta ardayda Soomaaliyeed dariiq kasta qofka uu gaaray siin kara cilmigana ay ku gaarsiiso annaga jaamacadda islaamiga hadda magaceeda ku hadal gaar ahaan waxaa la garab taaganahay macaahid sharciya dhan kastaba inaan u tababarno macallimiintooda qayb weyn manhajka الدجين هيدا يرجع وحكالات الجنة وغفيرينه لما هو أرضنا كسوق الجبسة كسوق بعض إن الجامعات كسوق بيرينه ومنحة يمنحة ناقصة يقالس كبحي كل هي كلام الله هنا هذه رابطة الجنحان وهي ماذا إن شاء الله تعالى غفيريننا أرضنا سوق الجبسة وحن قلب وحكسر لنا من حي وعيد سكول حجرات agaasimaha waxbarashada ahliga ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Muuse Maxamed Caraale ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay garab taagan yihiin dalada macaahidada sharciga ahliga ee Soomaaliya am xeela daladahan hadda soo istaagteen laga bilaabo maalinta sabtiga dool idmana madaxda ama madaxa waa maqlay marka waa la sii dardaarmay kursiga uu ku fariisan lahay ama dalada kursiga uu fariisan وديارنا ويكون فريسة وزارة السيدة الدلالة كلا أفريقيا طبعاً كأشياء طبعاً نقول نقطة ومحن كل هذا وحلا وحي مقررات وكسر على وزارة موسى عثمان أبطو تلفزيون كقرن كسوماليات مقدشة